السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أمة الصوماليات ملك الدنيا على ذاك الجوان جارهان أرضنا بصومالية كحرين جنرال كي قاسيو برودكشن سيدا هوري ذاك بلن قاضي waxaan sameyn doonaa research anigoo ka bilaabi doona research see topic loo doortaa runtii siyaabo kala duwan ayaa topic loo doortaa sida aniga aan isku soo bandhigi doonana waa the easiest way aad ku heli karto research topic ardada inta badan waxay sameeyaan waxay yiraahdaan research topic waxaan kala imaanaynaa maskaxdeena book iyo qalin ama warqad iyo waxay qaadanayaan qalin waxbay qorayaan maanta dhan waxbay qorayaan muhiimaddu waxay tahay marka war topic aad rabto inaad research ka sameyso dad adiga ka horeeyay wax ma ka dhaheen sababtoo ah research ka sidii banaanba maxaa waaye wax hore loo qoray inaad adiguna fikir cusub aad ku soo biiriso for example hebel iyo hebel ciwaanka noocaana waxay ka fiiriyaan hadda research-ka waxa ku soo bandhigay hebel iyo hebel markii ay maxaa ku yiraahdaa topic-gan waxay ka fiiriyaan dhankaas laakiin aniga waxaan ka fiiriyay for example hebel iyo hebel customer satisfaction waxay ka fiiriyeen dhinacaas laakiin aniga waxaan ka fiiriyay customer satisfaction waxa lagu heli karaa dhankan saddex nishidan soomaali marka research-ka sidii banaanba waa cilmi baaristuna waxyaabaha hore loo qoray waa inaad heshaa waxaan aragto inaad ka hadasho waxyaabaha hore looga qoray ma jiraan yes haddii jiraan keenso laakiin fiiri waraaqada buuxisay topic la ka buuxisay topic laftigiisa waxa la rabaa nuxur inay yeesho wax yar oo gaaban laakiin wax iska tiro badan waa lagu cajisaa macna marka warqada buuxisay google ka aaday waa hal xabo ka weys oo literature review so that's the problem ka jira waa halkaas marka si taas ay soo dhicin cashirkan daawo think so in wax badan aad ka faa'iidi doonto waxaan ugu soo bandhigi doonaa the easiest way aad ku heli karto research topic okay markaad rabto inaad research topic aad doorato saddexdan qodob loo baahan yahay choosing oo macnaheedu ay tahay inaad ciwaankii doorato markaad doorato kadib maxaa ku sameynay filtering inaad soo filter garayso say u filter gareynay for example waan idin tusi doonaa su'aalaha ka bixin doonaa ciwaankan Africa ayaa wax looga qoray gaar ahaan Kenya iyo Uganda iyo Tanzania South Africa meelahaas oo kale wax looga qoray laakiin Soomaali wali wax looga qorin adiga rabin wax ku qoro ka qorto macna soo meelo badan oo South Africa kaga hadlaya wax ku sameynay filter kaga sameynay macna ina baleyski filter ku sameyso time-kii daraasada ay qaadanaysana filter ina ku sameyso macna hadii iyaga tayyeerisay ka hadlayeen adiga garanayo daraasada inta wali doonto macna 5 years 6 years 2 years 1 year 2 year 3 year 4 year ma wadi بس وحاولت 10 سنة ودي أبيها يقانا معنا كانوا قدام بيو question أنت هذا topic هذا معانا كان وجود بين كهر أبيها سؤالوي نسكويدي وأنا أقدر الناس سؤالوي كسودي نسيت شاء الله تعالى ما كسيد هذا أيام بيد وبندق وصوب بندق دونا كان كوات كهر مرينا choosing a topic أنا topic دورتاي وحكاية حرنت الله بدنا نقول معي كلنا بنقول number 1 personal interest personal interest maxaa laga wadaa sibali personal interest waxaa laga wadaa maxaad xiiseysaa oo aad jeceshahay oo waliba related la ah takhasuskaaga suurtagal ma aha anigoo business administration ayaan waxaan ku qalin jibinayaa book IT research IT ayaan ku qalin jibinayaa oo system sameynayaa suurtagal maaha macna waa waxaan isqaba karin macna
okay business administration tahay waa inaad marketing wax ka qori kartaa waa inaad HRM wax ka qori kartaa iyo wixii la xiriira macna maadooyinku noocaas oo kale wixii la halmaala marka maxaad jeceshahay oo interest gareysa oo takhasuskaaga la xiriira ayaa loo baahayaa inaad aado mid kale oo muhiim waxa aad dooranayso ciwaanka aad dooran doonto waa inuu noqdaa ciwaan wax ka taqaan macnaha ciwaan wax badan ka taqaan inuu noqdo loo baahan yahay ama article asoo ku saabsan soo akhri amaba maadaama marka hore aad ku fiicneed oo aad jecleed area ka dhigo for example marketing aad jeclaa marketing ha noqdo scope-kaaga area daarto inaad ka hadasho marketing ha noqdo macnaha area daarto inaad ka hadasho marketing ha noqoto waxyaabo marketing la xiriira maxay la xiriira marketing for example هذا أنا إيوان كقول جبيه the impact of customer relationship management or customer satisfaction هذه customer relationship management اللي سماه ما له هلي كرا customer satisfaction أو معناه ده هاي customer relationship management system لو كيدنا يحط مع عميشة هذه اللي سماه أو معناه customer satisfaction ما له هلي كرا قناعة ما له هلي كرا أو for example qofkii shal wax ka gatay markuu yimaado magaciisi ma taqaana okay ka soo qaad qofka ku yimid wuxuu ka iibsaday uu ka tagay bariyo ku soo noqday okay waa inaad taqaana magaciisa meena adina shakhsiyaantaada meel magacaagi lagaaga wacaayo lagu qadarinayo oo already telephone number-kaaga lahaayo hadii new versions ay yimaadaan lagu soo wacaayo iyo meel aan lagu xiriirinayn lagu soo waceynin ma kala dooranay macna isku mid kuma aha marka hadii la sameeyo system xogta macaamiisha lagu kaydiyo hadii la sameeyo customer satisfaction miimaanay macna customer satisfaction miimaanay okay marka dabcan taas oo kale loo baahan yahay waa marketing related to marketing sotaa customer iyo wax la mid ah ka hadlo marketing right marka area-daada ha noqoto maado interest gareyso waa jecesha meena oo aad xog badan ka hayso meena okay tan labaad area-dii aad dooratay topic-gii waa heshay is there a prior study qodobka labaad prior study ma leeyahay fiiri google crane prior study ma leeyahay prior study markay ardayda raadinayaan inta badan waxay sameeyaan waxay rabaan for example inay helaan customer macnaha topic isku xiran inay helaan war topic isku xiran oo kaliya inaad hesho article inaad raadiso topic isku xiran laftigiisa inaad qasbanid waxa raadinay customer relationship management article ka hadlaayo variable kale wuxuu doona ha noqdo variable kale wuxuu doona ha noqdo labada variable kale raadi gooni u kala raadi waad helaysaa dabcan ugu yaraan waxa loo baahan yahay markii aad rabto inaad maxaan ku yiraahdaa daraasad sameyso ugu yaraan markii u yartaa adiga 12 article wixii ka badan inaad maxaan ku yiraahdaa haysataa loo baahan yahay macna 12 article iyo insha Allah taala waan idin wadaagi doonaa article sales review garaya article ka sales review garaya ee laftigeedu waa ka hadli doonaa insha Allah taala marka rabtana topic doorato labadaas qodob muhiim ah waxa dhaanay inaad leedahay wax aad jeceshahay adiga macna oo la xiriir waliba takhasuskaaga macna number 2 wixii aad jeclaad takhasuskaaga la xiriiray markii aad doorato and then prior study malaya oo hadhow support ku noqdo adiga hadhow ku support gareey ma helay macna okay labadaas arrin loo baahan yahay okay qodobkii labaad oo ahaa filtering say ugu sameeyna markii aad rabto inaad filtering sameyso laba qodob baa ku sameeynaa baleyska iyo timeka baleyska maxaa laga wadaa baleyska waxa laga wadaa war customer relationship management iyo customer satisfaction topican asaga ah waxa looga hadlay Uganda iyo Kenya Tanzania South Africa ahash in looga aad soo ogaato in looga hadlay okay baleyska way kala duwan yihiin Soomaaliya meesha joogto waa Soomaaliya wadamada kala duwan looga hadlay so waa inaad Soomaaliya
aad ku soo dabaqdaa macnaha. For example, inaad u rogtaa the impact or the relationship between customer satisfaction and customer relationship management and customer satisfaction inaad ku dabaqi karto Soomaaliya macnaha. inaad Soomaaliya ku dabaqi karto eega Kenya iyo Uganda iyo Tanzania wadamadaas oo looga hadlay, laakiin in ciwaankaagii aad dooratay inaad Soomaaliya aad ku dabaqi karto macnaha, inaad Soomaaliya ku dabaqi karto macnaha. Okay marka filtering waa kaasa inaad filtering ku sameey karto place-kii, inaad filtering ku sameyso loo baahan yahay iyo time-kii daraasada qaadanayso. For example 10 years hadii iyagu adiga yaqaana inta daraasada wada doonto sanad miya 2 sano miya 3 sano miya 4 sano miya, it depends on you, daraasada ay ku xiran tahay. Okay qodobka saddexaad waa dhaanay inaad testing ku sameyso topic-gaagi si u test gareynaya. waxa ku test gareynaysaa saddexdan qodob. kow debatable, waxaad fiirinaysaa kow topic-gaagu ma yahay wax laga doodi karo ma yahay. hadda waxaan laga doodi karin abla la helin Soomaa, waxa laga doodi karay ma yahay markii la waxa loo jeedaa wax laga heli karo ma yahay. wax la heli karo hadii la raadiyo la heli karo ma yihiin sababtoo ah horta wixii la heli karo un baa laga doodi karaa Soomaa, wixii la heli karo un baa laga doodi karaa, laakiin wax aan la heli karin lagama doodi karo macnaha. oo maxaa looga doodaa maba yaala miiska ma yaale, wax la heli karo diyaar un baa laga doodi karaa Soomaa, laakiin waxa la heli karno oo limba meesha ma laga doodi karo. marka topic-gaagu hadii wax laga weydiiyo ma ka jawaabi kartaa, say uga jawaabi marka say uga jawaabi hadii aadan daraasad ku taageeri kara aadan Google-ka ka heleynin article aan maxaa ku support garay aadan Google ka heleynin marka wax laga doodi kara ma aha marka wajida. marka debatable ma wax laga doodi karo ma wax la heli karo ma yahay admins wax la heli karo oo laga doodi karo ma yahay. hadda wax la heli karin oo ma laga doodi karo Soomaa, marka wax la heli karin abad isku jideynin brad. marka dadka dhahay maskaxdeena ka dhiraadhirinayna waa dadka waxoodan la heli karin macnaha way imaanayaan Google-kii ma leh, way naqanayaan way qorayaan adina way imaanayaan ma leh. okay marka qodobkaas waa mesh in la fahmaa maxaan ku raadar rajeynaya debatable ma yahay wax laga doodi karo ma yahay macnaha, wax la heli karo laga doodi karo ma yahay macnaha. number 2 plausible maxaa laga wadaa? simple waxaa laga wadaa okay topic-gaaga waa laga doodi karaa, plausible ma yahay oo macnaheedu waxa loo jeedaa wax ka support gareeyo. okay plausible maxaa laga wadaa? plausible waxaa laga wadaa wax ku taageeri kara ma helaysaa, literature review oo adigu ku support gareeyo ma heli kartaa. yes hadii ay heli karto it is good, go ahead horuso, well done, the job is done, horuso Brian. okay consequential important ma yahay? important ma yahay topic-gaaga? important ma yahay? important ma yahay? ma yahay wax laga faa'iidi kara? wax laga faa'iidi kara ma yahay? saddexdaas su'aal inaad weydiiso. hadii saddexdaas su'aal aad ka jawaabto and then go to your maxaan ku yiraahdaa macalinkaagii supervisor ku ahaa u dir. insha Allah taala in cashirkii la fahmay ayaan rajeynayaa. hadaan la fahmin waan ku soo celinayaa iisoo ka mudagareeya meel la fahmi waayo wixii su'aalaha qabtiina iisoo ka mudagareeya please and please. waxaan ka codsanayaa inaad subscribe kareysiin channel-ka si maxaa ku yiraahdaa gambaleedkan aad riixdid si hadii cashir walba aan soo dhigo oo ku soo gaaro. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. yaan la iloobin inaad wixii su'aalaha iisoo ka mudagareysaan. insha Allah tacaala waxaan kaga soo jawaabi doonaa as soon as possible. meel la fahmi waayana soo calaameeya iisoo dira su'aalaha meelihii la fahmi waayana soo calaameeya su'aalooyin iga soo weydiiya
إن شاء الله تعالى هذا سبسكرايب كي على جنب غير إندي سبسكرايب هلا maxaan ku yiraahdaa hala gujiyo gambaleelka hala garaaco hala riix gambaleelka si ay ku soo gaaraan updateska casharada updateska si ay ku soo gaaraan oo marka intaas ugu caawiya insha Allah taala caafimaad idin rajeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh. Okay, waxaan rabaa marka inaan tuso simply baagida sideen ku helayaa marketing waa interestigayga sideen ku helaa marka marketing topic la xiriira oo research loogu talagalay. Simply Google ka imaanaysaa waxaad ku qoraysaa research topics in marketing maadada jeceshahay in HRM in marketing qadka ay xirnaa sorry qadka iska xiray si maxaan ku yiraahdaa aan leeyahay markii aan sameynayo cashirkii waxa ka soo dhici doona okay soo aragtid waxa iska soo dhacay okay focus okay research topics in marketing kan ugu horeeyo aad ku dhufanaysaa qadka xawaa iga culus okay kan guriga ayaan furanayaa si maxaa ku yiraahdaa speedkiisa oo okay u noqdo okay meeshan waxaa ku qoran waxaan soo sameynaa waxaan imaan Google Chrome aan soo kacsanay waxaan soo dooranay research topics in marketing halkan kan uu korayaan ku soo dhufanay meeshan waxaan ku qoran fiiri 32 plus research paper topics and ideas for marketing students okay waxaad tegaysaa marka inta okay how do organizations use CSR waa corporate social responsibility to reinforce brand image kanoo kale sidoo kanoo kale markaa rabto inaad filter ku sameyso kana dooratay filter ku sameynaysa ku sameynay waxaa leedahay for example waxaad leedahay the impact of reinforced brand equity on the use of organizations CSR okay waxaadna keentaa waadiisa okay recently okay waa kan kii oo soo koobiyay halkan ayaan keenay soo ma okay wuxuu ahaa the impact of wuxuu ahaa how do organizations use CSR on to reinforce brand equity say marka ciwaan u dhigaa okay simply waxaan ciwaan u dhigaysaa edit marka hore marka yara adoon edit dihin waxaa leedahay the impact of reinforce brand equity on organizations use CSR CSR corporate social responsibility saas waa dhihi kartaa waxaa kaloo dhihi kartaa relationship between
investigating relationship between waxaa ka dhigi kartaa organizations kala hormariyay organizations use of CSR and reinforce brand equity heli kartaa marka timeka oo kale ama beliska oo kale maxaa lehe in some selected beliska oo kale waxaa leedahay some selected maxaan dooranaa private water companies in Mogadishu Somalia. Okay, so aragtid beliskii tag Mogadishu waay wuxuu u diidaa dee Soomaaliyana u qoray sorry meesha s okay Mogadishu Soomaaliyana si qalad u qoray Somalia. Okay, taasaa leedahay word waay waxa uu u saaraya calaamada micnaha wordkana waxa English ma aqbalayo micnaha erayaan English ma aqbalayo. Okay, taasaa leedahay marka taasaa waxaan ku yiraahdaa u filter gareynaysa. Okay, marka sidaas ayaad maxaan ku yiraahdaa aad u soo filter gareynaysaa. I think so in la fahmay ayaan rajeynayaa. Hadda fiiri ciwaankii kaas laba ayaan maxaan ku yiraahdaa laba jeer ayaan filter ku sameeyay. Marka insha Allah taala waxaan rajeynayaa in aad iyo aad loo fahmay. Kulay waxaan jeclahay in laga faa'iido doono wixii su'aala aad qabtaan commentiga igu reeba please waxaan idinka rajeynayaa ama waxaan idinka codsanayaa in subscribe-ka aad igu taageertaan gambalaalkana aad riixdaan si updates mar walba aad u noqoto haddii casharkan soo dhigaba si uu kuu soo gaaro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.